بسم الله السلام عليكم رمضان وناكسن كسودو حلقتين أفراد حلقوين كسبدل وحرجينا إن آد ولا صعدت حلقوين كروحنا وقصة شيء سنة أيضا من بداية أفهم كسو قاعد نسبدل كوحدة هاي هل كحلقتين وجود بس أفهم هيرك ومرس بدل هذا مهم إن نسلفها إنه محا قبضة محا جالن جو يدي ذكرنا نسبدل سماه si guud markii laga hadlayo caqabadaha isbedelka qof ka hor istaaga waxyaabo badan ayaa qofka maskaxdiisa ku soo dhacaya right now waxa laga yaabaa adiga maskaxdaada in waxyaabo badan ay ku soo dhaceen ay koow ka tahay duruufo dhaqaale ay laba ka tahay problem family ka haysto ama waxyaabo kugu hareeraysan ay saddex ka tahay issue iyo fikirada kugu hareeraysan laakiin waxa jiro caqabado la isku raacsan yahay oo qofku u diidi karo inuu isbedel sameeyo caqabada koowaad waxay tahay qaabka u fikiraysid Albert Einstein wuxuu leeyahay oraah dhahaysa ama qaacida dhahaysa sida shalay u fikiraysa hadaa u fikirtid si lamid ah aan rajaynayso inaad natiijo kale heshid suuragal ma macnaheedu waxa ka dhigan tahay hadaa shalay u fikiri jirtay si liidnaan ku jirto hab fikir xumo ku jirto oo aanan wanaag arag iyo baraar arag aysan qalbigaaga niyadaada u diyaarsanayn من إسبدل مسؤولية مركو عقبة كوادي كودي دنينا إسبدل سميسها وهب فكر كاجا أم قابك أو فكريس إله سبحانه وتعالى وأشياء ذينا كرك أنا كوهر رأسا بدن كود استجع نجدا معنا تقاضي ما ملكيدي ما رينتيد لكن ماشي وجويني وجم مضني أو نده هاي ما ملكي دوش صارت وحيت هاي مسكح دينا أنت بدل القرآن كحكوا أركيسا أيدها أفلا تفكرون أفلا تعقلون يوحيا ولا ميدا مركو شيء وجوين وهب فكر كاجا haddii aad tahay qof mar walba ka fakara daneeya diirada saara xiiseeya ka hadla waqti ku bixiya hadallada dadka kale ama isweydiiyo su'aasha doqonka ay dhahaysa dadku maxay dhixi doonaan isbedel ma sameyn doonto forever waxa ku jiri doontaa heerkii koowaad ee aan sheegnay ahaa mas'uuliyad darro oo mas'uuliyadaadu dhan waxa dush u saari doontaa dad kugu hareeraysan waalidka macallimiinta saaxiibada iyo dad kale waxay ku dhaheen marka waxaan umaleynaa caqabada koowaad oo ay la fahamtay caqabada labaad waxay tahay qaab nololeedka ama routinkaaga okay waxaan rabaa inaan noqdo qof jimista oo jirkiisa qurux badan yahay haddana ma iska dhaafay cunooyinka like saameynta kula jirkeyga isna logic okay aqli gal maaha waxa u baahan tahay marka inaad routinkaaga bedesho caqabada labaad marka routinkaaga waa haddii aad rabtid inaad noqoto qof 5am kalaab ka tirsan ama dadka 12 ka soo tooso ما هذا هبينكنا سديد ساحتها وأنا حل ورا إسكت ساحتها سي حل ورا وصوتوستا هدارتنا نقط قف برودكتيفا وأنا مونيك وركفا إذا استا نقط قف مونيك روتين له أو مونيك شخصي قبصة ده إتمين وحقوم هم سوا حوالي روتين كاي وأنا بدش مركا عقبات الله واحد حرجينا أنا إلى فهمت عقبات الله واحد حيتها هاي جالنجي وكويستو إن روتين كاي بدشوا لبعض جالنجي وجوا وين جالنجي هذا كله إحنا قلنا عيان وحياة بس جلا لكن fundamental جالنجي صحاء جالنجي كواد how to think qaabka u fakiraysid iyo challenge labaad oo ah routinkaaga maalinlaha ayaa sameeyso labadaas challenge daa xaliso am sure isbedel degdeg ah kugu dhacayo oo waxaad ka soo gudbaysaa heerka koowaad ee ah mas'uuliyad darrada oo waxaad u gudbaysaa heerka labaad ee ah inaad mas'uuliyadaada qaadato aad diyaar u noqoto inaad isbedel weyn aad sameeyso noloshaada horumar badan iyo baraaro badan aad ka sameeyso waxa rajaynayaa labada challenge in meel ku xariiqday oo hadeertan aad dib u sixi doonto si safarkan isbedelka ay bilowday aan qayb uga noqoto hadii Ilaahay raali ka noqdo anigu waa Cabdi Fataax Qaasim Cali barnaamijkan waa xalqooyinka isbedel mahadsanidin